wasaaradda ciyaaraha waxaan leeyahay cadaalad darra halkaa ka dhacday ciyaartu gool iyo eber bay ahayd dhagax tuur baanu arkaynay amaan darraanu arkaynay dawladii qaybihii dawladda oo dhamina way fadhiyeen waxa fadhiyay taliyihii guud baa fadhiyay waxa fadhiyay wasiirkii baa fadhiyay waxaanu leenahay walaalayaal garoonku waa garoon Somaliland weeye kubaduna barcad iyo barmadow bay leedahay in laga badiyo inaad badiso labadaba inaad ku tala gashaaba fiican walaalaha yaga reer balgubadla waxaan leeyahay walaalayaal maanta hadaa badin wadaan bareydun badin sida u badin jirtay madin u badin walaalayaal wixii ceebta ah ka saara sharciga ciyaaraha ahayn ka saara dhagaxana ka dhex tuuraysan garoonka joojiya wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh horta halka kan waxaan indhaha dadka oo dhan ay ka marag ahaayeen waxaan hore looga baran looguna arkin ciyaaraha dhacaya kubaddu waa barmadow iyo barcad waa guul iyo guul darro shalay hadii laga badiyo maanta aad badisaa badaad maanta laga badina bari baad barin doontaa taa waxa leeyahay waa dhaqanka ciyaaruhu ay leeyihiin balse wax dheeraadaba meesha ku jira oo ah niman shaqaystay oo dadaalayo ciyaarahoogii iyo tartankoogii si nadiif ah oo sharciga waafaqsan u dhashaday oo indhaha shacabka dibadda iyo dalba iyo gudaha iyo dibaddaba loo dhamaa ay arkayeen waxaan halka arkaynaa in qalad weyn uu dhacay oo gool cidhiidhsi ah oo meel uu soo maray iyo meel xatooyadaasi laga keenayba dadka oo dhan ay maragindhahoogu ka ahaayeen mid shaashad ka daawanayo mid goobjoog ahaaba saraakiil fara badan oo indhihii iyo aqoontii iyo maamulkii iyo mas'uulkii waddanka ahina way joogaan meesha waxa aan halkaa ku boorinayaa walaalaha iyaga reer Balgubadle ee gobolka Hawd marti baa leedin yahay inkastoo Hargeysa loo wada yahay marti gaar ahaan xaafadiina marti baa loo yahay martidiina wixii aan shalay ka cabateen idinka yaa leedin ka helin baan idin leeyahay waxaan safarayaa qalad baa dhacay waxa dhacday xatooya dhacday sharci la baal maray baa dhacday marorsi baa dhacay waxa farayaa ha dhacaan hadii wax laga qaban waaye taasa iyaduna masiibo noqonaysa hadii waxba laga qaban waayo oo dib wax loo sixi waayo ayaa masiibo ah waxaan ku soo gunaanadayaa walaalayaal waxa la hagaajiyo walaalayaal wax nadiif ah lagu shaqaysto si wanaagsan garoonkuna waa garoon qaranku leeyahay Somaliland leedahay balse waxa lagu leeyahay martigelinta leedahay gaar ahaan waxaan sheegayaa dhalinta gobolka Daadhowd ee kubadda ciyaaraysa inta taageeraysa aad iyo aad uqaashini waxay sheegayeen maqla balse waxaan idin leenahay annagu goor walba waxaanu nahay kuwa u dhex ah oo ogol waxa ay nasiiso kubadda dadaalkeedaanu la nimaadnaa baanu nahay marabna waxa tooyahay walaal waxa laga qabtaa baan leeyahay masiibada sharci ee ka dhacday halkaas walaalaha laga qabtaa baan leeyahay magacaygu waa Artan waxaan maanta fikirkayga halkan kaga yaraa cabir la ciyaartii ka dhacday stadiumka Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland marka hore dhammaan waxaan salaamayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay tartanadan socda iyadoo ilaa imika barnaamijka ciyaaruhu si wanaagsan u socdo balse aad maanta yara moodo in xoogaas waxaan meesha ka yara dhacay oo labadii xul ciyaari ee Daadmareed iyo gobolka Hawd u dad dhaxmaray iyadoo kullay taageerayaasha meesha ay ku badnaayeen qolada Hawd oo aad moodo marka had iyo goor ka dhasho inay garoonka yara qiiro galiyaan kubad xoro xalaala kullay la wada ciyaaraya anigu kullay cid qaylisa qaladka ma leeyahay cid ciyaarta dhexdhexaadinaysay un bay ahayd inay go'aankeeda qaadatay waxaan anigu yara dhaliilaya maanta cidii dhexdhexaadinaysay ka garsooraysa ciyaartu inay cid wax ku yara maslaxday baad moodaayo goolkaasi yara maslaxadaha yeelkeed cidii go'aanka qaadatay u taala imika wax halka ka yaala ma jiro laakiin anagu fariintan u darinaa waxa weeye oo aanu leenahay reer Hargeysa ama reer Balgubadle iyo reer Siinay idinka maanta marti leedii yahay marka ftarana waxaan oranayaa inaga qoladeena Hawd iyo reer Wadweyne waxba ay isugu keen jireen geel waa isugu keen jireen anaga dhagax naga bilowdaan ma yara wanaagsaneyn waan salaamayaa dadka dhamaan reer Balgubadle iyo reer Daadmareed intii wada ciyaartay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh